Qaar ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaalo ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay furitaanka dukaanka cusub ee Shaadiye Sharaf, taasi oo ay ka hirgelisay gudaha magaalada Muqdisho. Shaadiye ayaa shalay xilli barbarkeeda uu taagnaa saygeeda waxa ay ka shanqarisay in maadaama ay u tahay maalin farxad leh, isla markaana mid ka mid ah guulaha ugu weyn ee nolosha ay hiigsanaysa ay gaadhay, ay haddana doorbiday in aysan wax xaflad oo dad isugu yimaadaan aysan dhigan maadaama ay ku beegneed furitaanka xarunteeda cusub. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sheegtay in ay u joojisay sababo la xiriiro si ay murugada ula qaybsato dhibanayaasha waxyeeladu ay kasoo gaadheen qaraxyadii kala duwanaa ee mataanaha ay dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay ku nafwaayeen in ka badan 100 qof, halka in ka badan 300 oo qof lagu dabiibayo xarumaha kala duwan ee caafimaadka. Shaadiye ayaa waxa ay sheegtay xilli ay ku sugneyd dukaankeeda cusub, islamarkaana ay usoo bandhigaysay taageerayaasheeda iyo daawadayaasha iyo dhammaan macaamiisheeda cusub ganacsigeeda cusub, ayaa waxa ay sheegtay inay u tahay xilli farxad, sidoo kalena guusha ay gaadhay qeyb iyo kaalin mugli uu ku lahaa saygeeda iyo taageerayaasheeda inteeda badan. Haddana waxa ay dhanka kale sheegtay in ay garwarsatay in waddanka uu wajahayo xaalad aada u adag, guluf ka dhan ah ururka Al-shabaab, sidoo kalena weerar kala duwan oo isxigigay ay ka dhaceen magaalada Muqdisho, kuwaasoo dad badan ay ku nafwaayeen. Waxaana ay sheegtay in aysan qurux badneyn in xilligan munaasabad markaasi damaashaad ah iyadu ay ku qabato gudaha magaalada Muqdisho. Shaadiye ayaa waxa ay sheegtay in muddooyinkii ugu dambeeyey, muddo markaasi 2 sano oo ay isticmaaleysay barteeda YouTube-ka iyo aaladaha kala duwan ee social media, in juhdi iyo dadaal dheer kadib ay u suurta gashay in ay ganacsi ka hirgeliso magaalada Muqdisho. Waxay sidoo kale aada uga mahadcelisay Najiib Aadan Najiib oo ka mid ah dadka iyadu asxaabta dhow ay yihiin, sidoo kalena shaqo wadaaga ay yihiin, gacanna ka geystay horumarkeeda qeyb ka mid ah sida ay hadalka u dhigtay. Haddaba ilo ku dhow Shaadiye ayaa waxay sheegayeen in ka badan $12,000 oo dollarka Mareykanka ay ku qarash gareysay xaruntaasi cusub, gaar ahaana qiyaastii ilaa $20,000 oo dollar, taasi oo ugu dambeyn imika xarunteeda ay noqoto mid cusub oo ay u wada leeyihiin dhammaan waxyaabaha ay xiiseeyaan dhalinyarada iyo sidoo kale bulshada qeybaheeda kala duwan, haddii ay noqon lahayd labiska haweenka. Shaadiye ayaa waxa ay sheegtay in fariimo kala duwan oo loo soo dirayay si isxigxigta ay dadku wax kaga weydiinayeen dareeskeeda, labiskeeda iyo halka dharka ay ka keento. Sidaa daraaddeed waxay doorbiday in ganacsigan imika ay ku dhiiratay inay furto, in dadka sidoo kale ay ugu soo bandhigayso isteelada iyo dhisaynada cusub ee dharka, isla marhaantana dalka dibaddiisa dalabkaasi ay kasoo qaadayso si dad badan oo aada u xiiseeya xidhashada, haddii ay noqon lahayd dharka hablaha kuwoodii ugu dambeeyey ay usoo dhoobtay xaruntaasi ganacsi. Haddaba dad badan oo baraha bulshada adeegsado ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey go-aankan markaasi la xidhiidha in Shaadiye haba yaraatee aysan fanaaniin iyo dadyow kala duwan aysan kala qeyb qaadan munaasabadda furitaanka dukaankeeda, ay iyadu iyo sidoo kale saygeeda keliya ay halkaasi si wada jir ah iskood ay u doorbideen in ay ku furaan aynu kusoo dhaweeyaan macaamiisha, sidaasi si ay ganacsigeeda halkaasi ay uga bilaabato. Waxaase dadka kala duwan intooda badan ay sheegtay inay ku hanweyneed in ay qorsheyso in furitaanka munaasabadda dukaankeeda in ay ku beegneed xilli markaasi 29 bishaynu kasoo gudubnay Oktoobar ilaa 28 ka hor inta uusan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, weliba labadii qarax ee wasaaradda waxbarashada lagu bartilmaameysaday, isla markaana soo bilaabo halkaasi beegsiga uu ahaa dad badan ay ku waxyeeloobeen. Ay sheegtay in xilligaasi ay ahayd waqtiga ugu habboonaa oo iyadu ay dooneysay isla markaana ku naalooneysay in ganacsigeeda dadyow kala duwan ay isugu yimaadaan, sidoo kalena furitaanka xafladeeda ay usoo camiraan. Dadkaas oo intooda badan ay sheegtay inay hayeen dadka reer Muqdisho, fanaaniinta iyo sidoo kale qeybaha kala duwan, dadka kuwooda magaca iyo miisaanka baraha bulshada ku leh, gaar ahaan TikTok leeda, si ganacsigeeda idheh iyo xayisiin loogu sameeyo. Hase yeeshee nasiib wanaag waxay sheegtay in keli ay ku noqotay maadaama ay aragtay in imika aynan qurux badan habbooneenna in xilligan dabaaldeg iyo fantasiyo ay gudaha magaalada Muqdisho ku sameysato,
halka dad badan oo xaalado kala duwan iminka wajahaya ay ku noolyihiin magaalada muqdisho haddii ay noqon lahayd dad bukaano ah oo u baahan gargaar dhiig haddii uu noqon lahay loo shubo iyo sidoo kale gargaar kale oo mucaawino maadaama dadka ay jeclaayeen ehelkooda ay ku nafwaayeen qaraxyadaasi. Shaadiyo ayaa dhinaca kale waxaa lagu tilmaamaa in liiska haweenka baraha bulshada adeegsado kuwooda iminka ganacsatada isu bedelay in ay kusoo biirtay muddooyinka ugu dambeeyana waynu arkaynay gabdhaha soomaaliyeed ee baraha bulshada adeegsado caanka ah intooda badan in ay iminka ay intooda badan jiha dhinaca ganacsiga ay ka abaarayeen noloshooda ay si tartiib tartiiba ay ku joojinayeen qaababka kale ee lacagaha iyo shaqooyinka markaasi aanu habbooneen oo ay faraha kula jireen haddii ay noqon lahayd fanka iyo waxyaabaha noocaas oo kale qaliladan ayaa ka mid a dadkii horeyba fanka isaga baxay islamar ahaantana doorbiday in mulkiilo ganacsi ay noqoto. waxaa sidoo kale ka horreeyey fanaaniin dhowra sida xamdi kuweyn oo iyaduna fanaanadaasi reer hargeysa aan iraahda ee somalilan iyadoona iminka ay ka mid tahay fanaaniinta ganacsatada ah ee gebi ahaanba isaga baxay fanka islamarkaana ganacsiga iminka ku biiray. sidoo kale waxaa jira fanaaniin aada u tiro badan oo iyagu gebi ahaanba ka gaabiyey fanka soomaaliyeed waxaana intooda badan iminka ay u jihaysteen dhinaca ganacsiga maadaama caqabado kala duwan ay ka jireen amaba uu kala kulmayeen dhinaca fanka marka la eego haddii ay noqon lahayd dhibaato isbiirsatay oo fanka ay dhexalsiiyeen ummadda soomaaliyeed. dad badan ay sheegayeen in fanka ka sokoow inuu yahay wax alla subxaana watacaala uusan raalli ka ahayn oo caradiisa laga helo islamarkaana dembi fawaaxish iyo sidoo kale fisqi fara badan ummadda tirada badan ee mar allaala marka bandhigyada iyo showyada lagu qabanayo ee dalka iyo daafihiisaba fanaaniinta soomaaliyeedna showyada ay qabsanayaan ummadaasi ay kulmiyaan iyo xafladooda dadka badan kulmayso intooda badan in ay tahay xaflad markaasi u horseedo in dunuubta ay sifaafiyaan ayna ka qayb qaataan. hase yeeshee muddooyinka ugu dambeeyay waxaa dhifi naadir ahayd in fanaaniintii la yaqaanay islamarkaana fanka codadkoodu aada u wanaagsanaa ay gebi ahaanba si tartiib tartiiba ay fanka uga sii baxayeen iyagoo markaasi ku biirayay dhinaca ganacsiga islamarkaana raadinayay irsaaqada xalaal ah doorbidayana in gebi ahaanba ay joojiyaan waxyaabaha mal awalka ee fanka soomaaliyeed dadku ay u dhexalsiiyey. muuqaalkan waanu soo gebagabeyneynaa. marka horese haddii iminka aad kusoo biirtay janalkan subscribe inoo saar laygare muuqaalkan la wadaag asxaabtaada si dad badan oo dadka inagu xidhan ka mid ah aynu u haleelno. fadlan la wadaag asxaabtaada oo gambaleelka furo si aad u noqoto daawadaha koobaad ee muuqaalada halkan aan kusoo gudbino u helo. waana kaaga mahadcelinaynaa wixii fikir talo tusaale iyo sixidii dhaliilba waxaad inoogu reebtay qeybta kommentiga. mar weliba waxaynu raalli ka nahay in dadka wacyiga iyo waanada iyo waxyaabaha ay noo soo jeedinayaan inaynu qaadanno kuna camal falno. haddii ay jirto arrin aad jeceshahay inaad nala wadaagto qeybta hoose inoo soo dhig. waad mahadsan tahay.